السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسكري جكارتا وبرعو كسوغن حتى برعو جوجتو ودريمي كرتا معناها إريق وليه كدودية قف هبل كدودية كل عام تطبع كدودية وشيفا كدودية قف كسورتي كدودية محاوي هاي حنون كم مجا عن له أيام بل ويدين تونات وينها برعو يسيدوا حلالي وحنا مجال برعو من كا بدي أنتوا ضبطن تتكونوا المجال برعو أي كعبنايا حنون كاس oo dhibaato ba'an dadkii iyo bulshadii kala duwaneed ku haya ilaahay wuxuu uga baryaynaa dadka ku dhaqan gobolka Togdheer iyo cid kasta oo u jiifta xanuunkaas inuu ka kor qaado channelkan haddaad ku cusub tahay subscribe dheh kambalelkana saar like saar sina share garee عبد علي الدحول waan cabdi cali dhuxul su'aal duwanaha magaalada Barcaw diinna waxa ku dhacay kuduudiye maxaad ka taqaansan maxaa u taqaan warniyo kuduudiya waxaan maqli jiray kudunkuud baa la yiraahdo ariga ku dhaca ariga waagii hore aan miyiga joogi jiray baan maqli jiray ariga kudunkuud baa haya wariyo xanuun kale waa xanuun khatar oo dadkiiba xaafadii waa jidan yihiinoo anigaygan reerkii iyo carruurtii intuu igaga dhacay baa haddana ilaahay dhaafiye dabayl buu ahaa haddama ifaan ilaahay un baan baryayo lahaa ilaahu naga dawee anna ilaahay iguma keenna waa ka caafimaad qabaa marka waxaan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha waxaan ilaahay uga baryayaa wixii uu hayana in ilaahay ka dulqaado wixii aan qabinna in ilaahay caafimaadkooda u siyaadiyo markaa bahalkan waxaan anigu arkayba gorgorkii buu malaha la socdayba gorgorkii xaaji saalax dadka ku cunay buu bahalkani la socdaan u malaynayaaba kugu la yaabka badnaa ee aad ka maqasho ama aad ku aragto xanuunkaas maxaa kamid ah wallaahi xumadaadu fara badan oo islaantu waaba kici kari weydayba ilaaha baa igoog banku waa kici kari weyda carruurtu waa kici kari waayeen war 7 habeen baan saxarada ka qaaday 3 carruur ay islaanta yaab iyo ama kaagi ku dhacay koodhe markaa waxaanu leenahay dawladda cudurkan kuduudiyaha malaa waa hawadana waxaa la yidhi malaa kaneecadii way sumaysay dawladdu oo ay tallaashay waa suntan ay buufisay naga daayay dhammaana marinaysaan yaa dawladda musabe hadday noogu darto sun haddana hawada waa mashaakilay taa kaneecadaanu idinka tallaalayna hore tiisiilayaadernaa fuufilada waxaan wada caafimaad baanu heli lahaynba magacayga waa khadar warsama cali waa khadar warsama cali su'aalan dadweynaha magaalada Barcaw diinna waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan wallahi dad xanuunkaas magaalada aad buu hayaa aad baan magaalada u saameeyay waana xanuun dadka aad u dhibay darbad fara badan la waaleeyahay waxaynu arki jireen ma aha wallahi marka xanuunkaas hawl weyn magaalada ku haya aad buu magaalada hawl weyn ku haya marka dad badan baa wax isku khaldayaan kaneeco iyo kaduudiye tolo farqiga u dhaxeeya maxay kula tahay wallahi anigu xanuunkan kulli waxaan u filayaa inay kulli kaneeco xumaato inay tahay kulli qaha qasab waayo waxaan arki jiray ma aha waxaan arki jiray xoolaha wada xanuun leeyahay muxuu ahaa cudul ku dhaca afar toban loo soo laabo waxaan ma leeyahay inuu yahay kiyo casraysan kulli kii casraysan ma leeyahay dad ku dhacay ma aragtay xanuunkaas khadar wallahi aad iyo aad waa badan yihiin marka astaamahaad ku aragtay iyo waxyaabo maxaa kamid waxaa ka mid ah darbad fara badan waa qofku oo maxay tahay aan kicba karayno dee fadhiisanayo afarta dib loo soo laabayo waxaa ka mid ah dadka oo dayaamayo maskaxdu qofka ay darbadan wax yeelayso marka hawo fara badan buu leeyahay xanuunkan hawo fara amiir wal أمير وحفلة أنا تهاي دتك كحران channel كسكري جكارتا أمير ولا سؤال عند دونا مقالة برعاوي الدين حكوا عيسى كذودية ما حد كتغان نورت كذودية وأنا جاي مدعين كوري يا در إلى هنا وان كم قال إنه كوا كهيدا بلا في غيره مقرنيسا لكن سي ضد بدن كل عيا توقف أنا كل عين قف حفظ دك تشوفون بكل عيا أنا قرت قار حفظ دك تشوفون كل عيا قار كلام حسنا هاي كل عيا كوري مقالة هو ولا مرأي الباب كستو حافظ والبا الباب كستو قراعي بانكو وحنون اندبيلا وانا نقول يا بنهاي قرانيس marka waa laba nooc mid waa qof maalin mid qofka maalin ama laba cashaynaya oo kadib soo kacayo midna waa qofka intuu la laabo 6 casho iyo 7 casho intuu hayo haddana intuu si bilaa camal isaga soo noqdo oo digada ka dhigayo oo deetan sida furaashka loo qaadayo gabigiisaba soo maad garan marka horto
qofka xitaa kaduudiyo ku dhaco maaragtay iska badhaaciyaayo mid aanad garanayn baad aragto uu hayo iska kaa salaamay haa idaa iska hayo ninka waxa kasi kaduudiya ku dhacay miyaad la yaabaysaa marka wala maskaxaan buu xitaa saameyn ku yeelanaya saameyn buu ku yeelanaya qofkooda badhaacis buu noqonaya hadduu ku soo fadhiisto mid qaba ag fadhii kari mid bilaamato haydiisa badan kowde ma garanaysaa noocaas aad maastan way wal waxa yaasin hal jaama su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan wal kudiya hadii la ka dhigo waxa weeye waa xanuun xun oo imka ciqaab yimee ha yimaadee waxa weeye waxaasi ummadana bulshadani waxay gacanteeda ku kasbatay waxayna arki jireen maaha marka waxa weeye daaweynta hoos daraatay dadkii waaweynaa waa aad bay u ildareen waxta adduunyada lagu yaqiinayna maaha waxaan kula talin lahaa bulshada iyo islaamka dadka islaamka waxaan kula talin lahaa ilaahay dib loogu noqdo waxa weeye oo kitaabkeena iyo diinteena iyo maslaxadeena quruxda sharafta lahayd aynu ku noqono waxayna hodeena waxa weeye waxyaabo badan oo aynu gaalada kala nimi sida dimuqraadiyadu ka mid tahay oo aynu kitaabkeena ku diidnay qabyaaladda waxyaabo wada miran cuqubooyin badan ayaa dhasha marka waxaan isaas walaal ku tarin lahaa diilay ka dhigo dad ku dhacay kaduudiye ma aragtay xaafadada qaar badan buu ilaahay idin ka kiciyay qaar ku baxayna oo dabal kulmoodkooda ku galayna wala sheegay walaal astaamiisa maxaa kamid ah astaamaha waxa kamid ah curuqaha xumad qofka gabigiisa isqaadi kari maayo wuxuu noqonayaa qofkii in loo qaado suuliga sida carruurteeda afka habe wax laga guro oo aan qofkii qof isu talinayo meel iska maamulaya baahayn qaar da ilaahay u sahlaana waa jiraan marka qaar ku baxayna waa jiraan awil muuse jaac baa la yiraahdaa awil muuse jaac su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan kaduudiye aniga ma soo marin laakiin ma maqasho maqlay waan maqlo magaalada waa ku badan yahay waxyaabad ka maqasho maxaa kamid ah waxaan maqlay baalkaas horta curuqa iyo muruqyadu qabtaa dadkana wuxuu ka dhigaa qof maaragtay aan waxba qaban karayn hadduu silaa ka cala dhacaya hadduu silaa toosna dhacaya kulley isaan arkayo dee raggii waayo badan soo joogay baad ahayd xanuunkani xanuun la arki jiray maaha maynaan horaba maynaan arag maynaan imika ka horto maynaan arag dawadiisiina la garan waa iid xasan jaac walaalo iid xasan jaac su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka aragtay maxaad ka taqaan kaduudiye waxaan ka arkay waxyaabo fara badan sinna saaxiibnaho uu ku dhaco xafaayad loo xidhay ninkaas aad iyo aad u siirey isaga dhiga marka xanuunkaas waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa aad ka aragto maxaa kamid ah wallaahi horta aniga iguma dhicin laakiin ninkaan saaxiibadan hay man anigu kuwa ayaa arkaniyow marka ilaahay nooma keeno dadkana waa nugu ducaynaa cabdi cawd cabdi ku soo dhow channelka Secret Jakarta su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan kudiyo ugu dhacay marka kudiyo waa xanuun weeye xumada hoo dadka helaya maalin dhaweyto anoo xaggan jaacadda dhigtaa jaacaddan uga joognay baarkay dadkii wada dhintinayo oo hablihii wada dhintinayo saa u soconaya odayaashii masaajidka ka soo baxaya wada dhintinaya deedna qaar baa ku qosqoslay oo yidhi anuu qof iga soo horbaxo ciyaa kudiyo baa qabay saa u soconaya annaga badh markaasaan ku idhahdaa maxaa baajinta marka kudiyo waa xanuun xun oo ilaahay gobolkeena ha dhaafiye xaggaasaynu raraynayno waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ee kaduudiye aad ka aragto maxaa ka mid ah dee addinkaas addimadaasaa lagu qabsanaya gebigaaga kici kari maysid subaxii oo kale markaad saa kac kici kari maysid faraha lagu qabanaya dabeedna lagu kicinaya ilaa iyo asbuuliga lagu geynaya wallaahi baalkaasi xanuun khatar weeye waa magacay faarax maxamed faarax maxamed waa su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay tahay kaduudiye maxaad ka taqaan kaduudiye horta waxba kama aqaan ilaahay uga nabadgeliya aniga iguma dhicin laakiin bulshada Burco aad iyo aad buu saameeyay waanu hayaa dadka boqolkiiba xooran karaa 60 uu ku dhacay marka waa xanuun dee Soomaalidu waxay tahay waxaan la arki jirin oo la arki doona waa xanuun cusub aynan hore u arki jirin imika magaalada haysta laakiin Burco dad uu ku dhacay ma aragtay aad iyo aad waliba dadka buurbuurnaa faraxan ku haya sabab noqonaya marka dadku ku sanayaayo qof yaraa 20 jira oo 20 jira oo xooga ayaa la qaadaya qof 20 jira asaas uu soo godanaya marka ilaahay naga nabad geliya anaga maxamuud jaac xasan bale walaal maxamuud jaac xasan su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan kaduudiye waa xanuun xun oo ku soo kordhay imka gobolka xanuunkaasi marka hore waxaan filayaa in uu yahay oo ay sababtay kaneecada oo aad magaalada markii hore ugu jirtay oo ugu badnayd oo ay magaaladu odhan jirtay macnaha sun ma leh taasun baa mala sababtay baan iyo anigala tahay
waxaan u qabanayaa curuuqaha wixii xagala iyo wixii xidida ee laabma ayuu dadka ka qabanaya aad iyo aad xanuun balagshar laysa u lana wey ciduu ku dhacay adigu ma aragta aniga laftaydu ku dhacay badii aniga laftaydu hadda ku dhacay 9 maalmood baan jiifay hadda waa muddo aad u dheer waxyaabii kugu la yaabka badnaad xanuunka ku aragtay maxaa kamid ah waxa kamid ah awoodda horta marka horeysa awoodda rowi waxa weeye xaglaha soo laabmayaan xaglahaagu haddii beedankeeda wax amateedo ku qabanayaan ma jirto xagga soorta aniga waxaba waxaas koosgaraynaysa in calooshu socoto horta ayuunbaa muhiima taa ayaa muhiima in calooshu socoto markaa dadka waxaan leeyahay yacniga kanaacada inaan la saashanin aad iyo aadna kanaacada balagshar loo saaro dadku kanaacada hala dagaalamo magaaladu la dagaalanto kanaacada caynkaas ayaan leeyahay walaal magacay waa cabdiqani xuseen waa suldaankii dhalinyarada Soomaaliland suldaan galxid waa ku dhawaay walaal barnaamijka way suldaan galxid su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kuduudiye maxaad ka taqaan kuduudiyaha niyo wallahi waxa ka aqaanaa dad baalka dadka fadhiisanay kuduudinayo baalkaas oo arkaysayo dad soconayo oo dhacayo la qaadayo aan halka ka kici kareen waana si degdeg ku yimaada qaar rafanaya arkaysayo aan xitaa aad buu baalka niyo aan qofku kici kareen ma raamsana luguhu kaga dhacaya qaar baa kuwa shabaxta lagu maskaxda kaga dhacaba lagu baalkan qaar baa nerfiska qabanaya marka baalkan wallahi anigu waa ka baqaa kulay 17 mar goor dhaco lugahaas ayaa kici karay marka daba typhoid baa lagu sheegay oo waxaan ay soo saari kareen dhaqaatiirtu ma garanayaan marka waxay u dhintay typhoid baa kuwaasoo waxay soo qoreen dawooyin badan fahmi waayba dadna marka Axmed Jibin baa lagu muday marka hore gaari waxa wax lagu yimid xaafadda horteeda waan dhaqaaq karwaa markii dambe markii Axmed Jibin baa lagu muday faleem caadi baan socday dawooyinkan dib u macluumin typhoid bay afki galiyaan waliga ya typhoid da kana cunto marka aan xidhaaba ya maalkaas ugu dhaco marka waa la waalay magacay waa Cali Ismaaciil علي اسماعيل شاع سؤال dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kuduudiye maxaad ka taqaan kulay niyo xanuunka la dhaw kuduudiyaha kulay Soomaalidu niyo wax muddo magaca in kitaab looga eegay marka kulay marka ugu horeysaba horta aniga inuu soo marin laakiin se dadku ku dhacay baan arkay calaamada uu leeyahay horta waxa kamid ah inuu qofku xumad waaliya oo qofku xitaa uu waliba ku dhawaanayaba teeda kale in qofka fadhiisanayaba oo xubnaha dhan uu qofka ku fadhiisanayo oo dadka qaar baa sheegay iminka inuu jabiyeyba ya marka xanuunkaas wallahi horta inkastoo aniga soo marin laakiin si calaamadihiisu horta waxa kamid ah xumad waaliya qofku xumad waaliya uu yeelanaya teeda kale waxa kamid ah qofku inuu xubnaha dhan qofka uu ka fadhiisanayo qofkaas toddobaad buu fadhiyaya teeda kale calaamadaha kale lagu garto waxa kamid ah Soomaalida xataa xaqsoor baa la dhaayo xaafadda haduu soo galo ilaa iyo xaafadda uu wada maro oo uu xaqsooro oo qofna aanu dhaafin ma tagayo marka anigu kulay waxaan ka aqaanaa waa inta Ibrahim Maxamed Ali Ibrahim Maxamed Ali su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kuduudiye maxaad ka taqaan kuduudiye aniga habeen saddexaad buu igu dhacay isla markii uu igu dhacayna xubin aan leeyahay waan qaadi kari waayay marka anu la yaaban baa lagu waxa la yiraahdaa kuduudiya la yiraahdaa dabadna waa kici kari waa kaadi bay la qaadaa bay noqotay inta kadib waxaan ogaaday in aan yahay kuduudiyuhu kanaaca xumaatay sababta aan ku ogaadayna waxaan ka dareemay afkayga qaraadh madax xanuun maxaan ku rahay xumad iyo qandho kadib markaan ogaaday intaa waxay cadaatay inuu xanuunkani kanaaca ku lug leeyahay waxaan doontay xulbad shiidan qaraadhkan ku mishay waan cabay markii aan cabay xubni aan iska taagi kara laa waan iska taag caadaan noqday intaa kadib waxaan soo iibsaday barida idaha waa la shiilay macaashariyaadkeeda baan cunay waanigaa soconaya maasha allah Axmed Maxamuud walaal Axmed Maxamuud su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kuduudiye maxaad ka taqaan kuduudiye horta magacaas Soomaalidu ma bixiso marka hore wuxuu ku soo horeeyay xagga bariga aaga iyo boosaaso iyo aagaas uu ku maqlay ugu horeyn sababana halkan markaas siman marka kuduudiyada kulay sida dhaqaatiirtu noo sheegtay waa un kanaaca xumaatay ka aaminsanahay waayo aasaartii iyo raadadkii buu leeyahay ay kanaacadu lahayd ka waxaan ka aaminsanahay waxa weeye inay tahay markaas kanaaca xumaatay waxyaabihii dad ku dhacay horta ma aragtay xanuunkaas
dabcan ha anigu walaalkaybu ku dhacay inkastoo aan kasii gaashaamanayo laakiin marka de kolley waxaan u geynay dagaatirada marka irbadayo wax noocaasa loo qoray marka sidaasuu markaa ku caafimaaday waxyaabihii kugu la yaabka badnaa aad xanuunkaa ku aragto ama aad dhigi kartuu kaga duwanaa xanuunadii kale aad aragto maxaa ka mid ah waxaa ka mid a kow qofku inuu matag leeyahay oo wixii uu cunaba uu soo celinayo waxaa ka mid a kaar badan oo qofku bal iska badaaye uu da'ayoba waxaa ka mid a allahuma mustacaan inaanu qofku bilaa itaal noqonaya aanu kici kareen marka kolley raadaadkuu leeyahay kuwaasaa ka mid ah magacaygu waa yuusuf cabdi yuusuf su-aal dadweynaha magaalada burcaan weydiina waxaa ku dhahaysa kaduudiye maxaad ka taqaan nin horta kuudiyo anigu labadaba waan ka aaminsana waa mabda'a koowaad horta baalka dadku waxay sheegeen inuu yahay kaneeca xumaatay baalka marka hore qofka wuxuu ku dhacaa kaneeca soo qaniintay qof qaba oo u gudbiso qof kale marka waxaa transmitir garanaya ama gudbinayo isku xidhayo kaneecadan soo qaniintay qofkii qabay qofkii caafimaadka qabay xanuunsan haddaan example ka soo qaato anigu habeen baan seexday qol aanan seexan jirin waa jimcihii dhoweyd buu ahaa kadib anoo khadka isticmaalaya kaneeca badan cunto marka haddan iyo heelle kama gelin aduu saqbarhkii markaan joogay horta laygu soo booday qolkan hore waxaa u seexan jiray nin bahalkaa qaba marka kolley dee baashii ninkii soo cuntay u baannay cuntay anuu markaa waxaan u tirinayaa baasha eelka kaneecadaasaan u tirinaya waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ee xanuunka aad kala kulantay maxaa ka mid ah waxyaalihii ugu la yaabka badnaa waxaa ka mid ah horta kicid aan kici kari waayay awood darro darteed suuliga oo aan ku galayay dee gurguurashaa gurguuranaya awood darro awooddooda adoo daciifaysoo dhulka gelaysa wax kasta adoo u nugulaanaya adoo karahsanaya hadalka qofkani ku leeyahay intaaba waan ku arkaa anigu bashiir maxamed cusmaan baa la yidhaha awlina waa lagu maalisaa awliyo su-aal dadweynaha magaalada burcaan weydiina waxaa ku dhahaysaa kuduudiye maxaad ka taqaan kuduudiye waa kaneeca xumaatay kowdhi marka kaneecadii hore maaha waa kaneeca meel kale ka timi oo ka soo duushay meel kale ka soo duushay marka waxaan dawadeedana ma garanaya anigu laakiin waxa dhakhaatiirtu way isugu geysay waa kaneeca xumaatay raygana saasaan qabaa waxyaabihii kugu dad ku dhacay maaragta xanuunkaasi midaan walaanahay oo uu ku dhacay waanu xanuunsanaya ilaa imika saakaban lidanaan marinayay cabsida cismaan baa dhorta su-aal dadweynaha magaalada burcaan weydiina waxaa ku dhahaysaa kuduudiye maxaad ka taqaan horta kuduudiye runtii waa xanuun ku cusub horta deegaanada ay soomaalidu degto laakiin markii hore asalkiisu markaan imika baadhay horta warbaahintana waan dhigtaayo horta laakiin xogtiisa markaa dhaatadiisa baadhay xanuunka kuduudiye horta markii hore wuxuu ka soo farcamay meelaha Mexico Latin America meelaha Amerikadaas ka soo farcamay horta oo bariyo hore lagu arka laakiin virus yar baa keena oo loo yaqaan afka qaladna loogu yaqaano jawaanis wax noocaas inuu weeyna maqan laakiin macnihiisa afka Soomaaliga marka loo macneeyo waxa weeye waa qalooc socod oo kale 2014 horta deegaanada Soomaalida lagu arkay kadibna uu yara baay xanuunki markii dambe wuxuu aad u sii baay xilliga abaaraha 2016 meelaha marka imika xanuunkan wuxuu ku cusub yahay deegaanada Burco imika wuxuu ku cusub yahay magaalada Burco gaar ahaan ilaa imika wuxuu aad ugu sii cusub oo kale oo awsaysta Muqdisho oo awsaysta horta labada magaalo ayuu maxaan ku raadaa xanuunkaasi waxaan ku raadaa labada magaalo aad ugu sii ballaaran marka xanuunka kuduudiyuhu wuxuu ku dhacaa kala goysyada kale unugyada dhiigga casaas oo kale marka qofku waa kan aanu cunto qaadan temperature-kiisa ama xumadiisu ay ka aad u kacsan tahay marka xanuunka intaas ka aqaan kugu la yaabka badnaa aad ka aragto xanuunkaas ama aad ka maqasho waxa kamid ah wallahi runtii waxyaabaha igu la yaabka badan waxa kamid ah xaafadan oo sikada uu marayo ama hal qof ka taagan ama laba qof ka taagan ayaa waxyaabaha la yaab kale igu mid qofkiina kadibna afar casho soo kacaya marka geeri baynaan arage xanuunkaasi waa saas ma ku arka xanuunkaasi kaliya magacayga waa Siciid Ismaaciil Nuur walaal Siciid Ismaaciil Nuur su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan kaduudiyuhu marka hore waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer waxaan ku xijinayaa kaduudiye waa virus kulay soo atiibay gobolkeenan kulay imika inagu ma hayno wax gudbinaya tooska marka waxaan jeclaan lahayn dawladdu inay xanuunkan viruskan qaado deetana ay shaybaadho laabka caadiga geliso deetana la soo helo dawadiisa si loo daweeyo xanuunkan ma garat marka intaas ku soo jeedin lahayn kaduudiyana de kale waa virus ma ogaa inuu dad ku dhacaya oo xanuun fara badan leh xumad fara badan anigu ma dhicin laakiin saaxiibaday imika sida dadka asxaabta oo dhan hay gurigeyga kale uu ku dhacay dad badan uu ku dhacay marka waxaan sheegayaa in dadkii laga qaado shaybaadh dad badan baa wax isku khaldayaan kaneeca iyo kaduudiye tolo farqiga u dhaxeeya maxay kula tahay
kadeecadu badii xanuun wala wala soo ogaaday kaneecadinku marka laabka la geliyo kaneeca qofkan haysa la oranaya laakiin kaduudiye maxaa laga qaaday qofkii xanuunkii iyo dawadii lagu baadhayay waxaan ku dawadii la siinayay kaneecada imku wala baadhay waxa la soo ogaaday dawadeedii waxa la soo ogaaday wixii lagu baadhayay waxaan jeclaan lahayn dawladda mar kale aan ku celinaya iyo istuwaa caafimaadka inay mar kale qaadaan caafimaad xanuunkan qaadaan oo ay soo laabka caalamka galiyaan dadna la soo helo dawadiisa iyo shaybaarkiisa intaas ma u dhigtir lahaa magacaygu waxa weeye aadan cabdullaahi aadan waa su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa maxaad ka taqaanaa kaduudiye xanuunkan kaduudiye anay horta aniga iguma dhicin laakiin magaalada xanuunkan kaduudiye dadweynuhu aad bay magaalada uga cabanayaan waana xanuun aad u fidayo runtii dee kaneecada gudbisa baa la yidhi markii la baadhay waana xanuun aad magaalada Burco weliba siiba gobolka Burco aad ugu baahay marka waxaanu ka codsanaynaa waxyaabihii kugu la yaabka badnaa aad kaduudiye ka aragto maxaa ka mid ah waxa ka mid ah qofkii oo aan soconba karayno gebigiisuba dee magaranaysaa xubnihii laga qabanayo oo xubnihii waxaan ku ka dhaqaaqi karayn marka qofkii gebigiisuba dee ilaa kaadida mudirqida ku gaadhay suuliga cabdiraxmaan axmed xaaji cumar waa cabdiraxmaan axmed xaaji cumar su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa ku dhahaysaa kaduudiye maxaad ka taqaan xanuunka kaduudiye waa xanuun la garan waayay wax alla wuxuu yahay dadkii loogu talagalay barnaamijka wasaaradda caafimaadka wax ka qaban lahayd ee aqoonta u lahayd iyo dadka u sheegtay waxa dadka haya lama hayo aad iyo aadna waxaan uga cabanaynaa haddaan nahay gobolka Togdheer dawladdii madaxweyne Muuse Bixisood wasiirka caafimaadka inuu dadka soo gaaro xanuunsanaya ee boqolaalka qof iyo kumaanku dhaafay ee aan cid wax u qabanayn ee dadka farmasiyada haysta iskaga mudayaan badda xoolaha geela lagu mudo tiimagas waxa lagu mudaya xoolaha ma aanan arag wax Soomaaliland u soo gurmanayo oo dawladdii ka socda ilaa dawlad baan leenahay ma niin dad cawaane ma hayno waxyaabihii kugu la yaabka badnaa aad xanuunka ku aragtaa maad ka maqasho waxa kamid ah yaanigaygan kula hadlayo ugu dhac iyo dadkaygi maxaad markaa aragtay waxaan arkay lafa xanuun madax xanuun caloosha dadka qof soconaysa wax bini'aadan wax dawladda wax u qabanayaan aan jirin